maxay Israa'iil uga cabsanaysay Yuhuud Yemen ku nool? Yuhuud aanan ahayn kuwa reer Yurub. Yuhuud tiro yar kuna noolaa buuraleyda Yemen 2000 oo sano ka hor. Markii ay yimaadeen Israa'iil waxaa argagaxay dhammaan Yuhuuddii reer Yurub markii ay arkeen Yuhuud Yemen. sheekadii la mamnuucay in laga hadlo waatan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kusoo dhawaada mar kale barnaamijkeeni taariikhaha oo aad ka daawanaysaan janaalka Xog Media. Anigu waxaan ahay Maxamed Axmed Xirsi Dirir. Maanta waxaan idinla wadaagayaa mid ka mid ah sheekooyinka ugu cajiibsan taariikhdan casriga ah. waa sheeko dad badani ay iska indhatireen. waa sheeko laga soo qaaday midaan weligeed dhicinba, laakiin taariikhdu ayada ayaa isqorta. maxay tahay sababta ay Israa'iil uga cabsanayaan Yuhuud Yemen ku nool? waa sheekadii la mamnuucay in laga hadlo. waa sheeko ay ku jiraan cadaalad darro, khiyaanooyin iyo sinaan la'aan intaba. haddii aad jeceshahay sheekadan oo dhammaystiran inaad daawado ka daawo linkiga yaala qaybta commentiga. sidoo kale ha iloobin inaad soo follow garayso pagekeena Facebooka, subscribe na saar janaalkeena YouTube-ka. mahadsanid.